xisbiga mucaaradka ee wadanaya si kulul u naqdiyay hadal dhawaan ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliland kaasoo ku saabsanaa tartanka doorashooyinka la filayo bartamaha sanadka inuu ku jirno ay ka qabsoomaan gudaha dalka. Cabdiraxmaan Yuusuf Tacaale Boobe xogayaha warfaafinta ee xisbigaas oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta dhexe xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa oo arintaasi faahfaahinaya ayaa waxa uu yiri madaxweynuhu wuxuu wareysiga koobnaa ku sheegay inuu wanaagsan yahay oo caafimaad qabo ilaahayna uga mahad celinayo annaguna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu si siyaadiyo sida aanu ka soo xiganay maalinlaha ogaal tirsigii 2454 ee soo baxay 26 bishan koowaad mudane Silaanyi isagoo ka jawaabay su'aal ku saabsaneyd qabsoomida doorashooyinka wuxuu sheegay inuu xukuumaddiisa ka go'an tahay inay doorashooyinku xilligoodii ku qabsoomaan isla markaana ay dawlad ahaan diyaariyeen wixii kaga beegnaa doorashooyinka madaxweynuhu waxa kale oo uu sheegay inay doorashadu xilligeeda ku dhici doonto insha Allah mudane Silaanyi wuxuu si cad oo aan mugdi ku jirin wareysigiisan koobnaa ku yiri waxay ka baqayaan inaan istaago waan istaagayaa waan taaganahay ee waa inoo garoonka marka uu leeyahay waxay ka baqayaan waxaan u qaadanay inuu jeeday xisbiyada mucaaradka khudbadiisii sanadlaha ahayd ee labada gole ka horjeediyay 2013 wuxuu madaxweynuhu si cad ugu sheegay inaan saacad loo kordhin doonin oo aan loogu dari doonin muddaxileedkiisa geesta kalena xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee wadanaya si kulul uga jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland oo maalintii shalay sheegay in xisbiyada mucaaradku ay qasab ku tahay inay aqbalaan haddii ay timaado muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda talada dalka haysa wasiirka maaliyaddu maruu ka hadlayay xaflad Mansoor hotel lagu qabtay isaguna wuxuu ka sanqariyay inay muddo kordhin iman karto laguna qasban yahay oo ay sanduulo tahay marka ay timaado kala hadalka iyo madaxweyne ka daba hadalku ceeb kuma aha haakaasugayaasha hungoobay balse waa caadadood annagoo ixtiraamayna madaxweynaha oran mayno uu baqanaya oran mayno uu baqayaa waxaanu halka ka cadeynaynaa xisbi ahaan inaanu diyaar u nahay inaanu galno tartan dimuqraadi ah xor ah oo xalaal ah oo loogu tartamayo doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynaha oo mar wada qabsooma madaxweynaha iyo xukuumaddiisana loogama fadhiyo inay diyaariyaan waxay doorashadu u baahan tahay oo kaliya waxaase laga rabaa inay xilli hore ku wareejiyaan komishanka doorashooyinka qaranka si doorashada loo mudeeyo qormosinka qaacidada ama formulada aan u soo jeedinay shacbiga reer Somaliland guntadaan waxa weeye muddo kordhin doonku waa doorasho diid muddo kordhin diidkuna waa doorasho doon maalin aan fogeyna macal cuna muuqan doonay